maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa si wada jir u daafuray leedhka ku xidhnaa laamiyada magaalada Burco dib u habeyn iyo dib u casriyeyn lagu sameeyay iyadoo fikirkiisa ay lahaayeen dhalinyaro reer Burco isla markaana ay fulineysay shirkadda leedhka Heeko Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayle oo kamid ah dhalinyarada keentay fikirkaasi cusub ee kor loogu qaadayo bilicda magaalada Burco ayaa faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan iftiimi Burco iftiiminta Burco waa barnaamij ay fikirkiisa keeneen dhalinyarada reer Burco isla markaasna ay la kaashadeen madaxda degmada iyo sidoo kale shirkadda adeegga korontada Heeko si barnaamijkaas wax shaqeeyo looga dhigo haddii aan iskaashi iman lahayn runtii waxba kama suurtageleen barnaamijka fikirkiisa iyo sidoo kale qayb kamid ah laambadaha iftiimiyay magaalada Burco runtii waxa keenay dhalinyarada iyo ka soo ururiyay bulshada sidoo kale shirkadda korontada ee Heeko oo aan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayno waxay kaga qaadatay barnaamijkaas door muhiim ah oo khuseeya dhaqaale adeegii leedhka oo awalba shidi jirtay oo shiday iyo sidoo kale taageero kale oo la xadlay intaba bulshada reer Burco waxaanu ka codsanaynaa inay ilaalintiisa ay door muhiim ah iska saaraan Khadar Jibriil Aadan maarayaha guud ee shirkadda leedhka siisa magaalada Burco ee Heeko oo kaalin weyn ka qaadatay barnaamijkan kor loogu qaadayo bilicda magaalada Burco ayaa sheegay in shirkadda Heeko diyaar u tahay wax kasta kor loogu qaadayo bilicda magaalada Burco runtii barnaamijkan fikirkiisa waxa iska leh dhalinyarada fulintiisana waxa iska leh shirkadda Heeko waxaan la iloobi karin oo aan aad iyo aad ugu mahad celinaya madaxda degmada shirkadda Heeko adeegga danta guudiyada awalba haysay degmadayada haysay awalba way bixi jireen laabadahana way bixi jireen magaaladuna way bixi jirtay laakiin dib u casriyeynta ay dhalinyarada fikirkeeda keentay shirkadduna waxay u bedeshay ficil bay u bedeshay waxay ku bixisay dhaqaale waxay ku bixisay juhdi shaqaale maxay ahayd tooy iyo asad bay ku bixisay dhalinyaradu runtii aad iyo aad bay umaanayeen waanu mahad celinayaa annaga way iskaaga garab taageen waxay nagu wareejiyeen guluubada aadarkasaan inta ugu badan qaybta kalena shirkadda ayaa bixisay waa adeeg runtii ay iska kaashadeen dhalinyarada iyo shirkaddu aan odhan karnana 70% ama 75 shirkadda ayaa bixisay hadday biraha tahay hadday xadhkaha tahay hadday guluubada tahay hadday shaqaalaha idinka dambeeya dhabarkiina taagan oo habeen iyo maalinba hawsha u taagnaa fulinayay tahay waxa muhiim ah oo bulshada halkan u marinaya oo fariinta aan u marinaya ay tahay waxa weeyaan midnimadu inay isu kaashadaan horumarka inay isu kaashadaan aan fariinta halkan marinaya waxa weeyaan fariinteeda labaadna waxa weeyaan adeegani dawuu sii soconaya intanu kuma koobnaan doono wuxuu u baahan yahay marka hore in la ilaaliyo oo maxay tooy deeg laga ilaaliyo in la jabiyo in maxay ahayd tooy la gawaari ay duqayso in laga ilaaliyo oo la wada ilaashado adeeg ummaddu ay wada leedahay oo horumar ay ummaddu wada gaadheen tahay wada ilaashato taafrintan marinaya waxa weeye wata gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamsan Maxamed Cabdi duqa degmada Burco Maxamed Muraad maayir ku xigeenka degmada Burco xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale Faarax Yuusuf Nuur Faarax Xidle ayaa dhamaantoodba u mahadnaqay dhalinyaradii uu ka soo maaxday fikirkani iyo sidoo kale shirkadda leedhka Heeko arintani waxay tusaale fiican u tahay haddii dadka bilaadanki ay wax wada qabsadaan in ay ka midho dhalin karaan yoolkooda ayay arrintan muujinaysaa dadka reer Burco shicib iyo dawlad haddaynu gacmaha isqabsanno oo loo midoobo sidii aynu u horumarin lahayn bilicda iyo quruxda magaalada waxa hubanti ah inay meel sare gaari lahayd waa mashruuc saddex geesood fikirka waxa iska leh dhalinyarada wariye Khalid iyo raggii la midka ayaa fikirka keenay kharashka iskaashi dhalinyarada hadday tahay dawladda hoose hadday tahay dadweynaha reer Burco hadday tahay shirkadda leedhka lafteeda hadday tahay waa barnaamij ama mashruuc intaasoo meelood isaga yimid aad iyo aad baan uga mahad celinaa dhalinyarada tacab iyo fikir labadaba way geliyeen
golaha iyaga deegaankuna tacab iyo fikir iyo awoodii labadaba waa gelinay waxaan marna la ilaawi karin heeko oo runtii arintan meel weyn ka taagan oo wax weyn la qabatay mahad allaale mahad labaad waxa leh dhalinyarada iyo shirkadda heeko oo nagala shaqeeyay haddaan nahay golo deegaan ahaan iyo maamul ahaanba heer gobol iyo heer degmaba in gobolkeennii la shido odayaashii ku shaqayn jiray markoo iskaa wax u qabso ama horumarinta burco dhalinyaro yar baa soo baxay oo bedelay Khalid baa ka mid ah waxay yidhahdeen heeko iyaduna doorkeeda waa cayartay local governmentkii waa cayaareen warasaabkii waa cayaaray Khaliil Barra Uraan TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.